marka kelmadaydu waxaan ku soo koobaya kulliba dad badan ba fadhiyo waayeel iyo wax garad ba leh dhakhtarkana Allah inoo barakeeyo Allah ka yeelo meel dadku waxay ka rajaynayeen ay ka helaan doctorkuna juhdigaasi uu bixiyay inkastoo doctorka anigu in badan waxa oran jiray war halkan baa siyaasadda ka fiican baahida iyo kala ka badan ta siyaasadda tan noo xooj maanta waa ku sii xoojinaya waxa leeyahay tan baan uga baahi badanahay ta siyaasiga marka baltaana mala markuu beeshanka gaadho u kiciye tan Allah la qabto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faqdheer iyo xogo badan oo aanu isweydaarsanay kadib waxaan ku qancay in wixii hadda ka dambeeya aanu soo jeesto howlaha samafalka barashada diinta islaamka iyo ka warqabka caruurteeda sida awgeedna waxaan go'aansaday inaan ka fariisto kow shaqadii dhakhtarnimada tan iyo horaantii sanadkii 1979 anigoo dardartii iyo xiisihii aqoonta qaba ayaan bilaabay inaan ummadayda ugu adeego mihnada caafimaadka waa geedi qaatay nus qarni gudashada waajibaadkaas waxaan u arkay in yar oo kamid ah abaal celinta dadka iyo dalku iga mudan yihiin waxaan se aaminsanahay in hadda la joogo xilligii ugu habboonaa oo aan ka fariisan lahaa shaqada maadaama uu hirgalay isbitaalka Haldoor oo qalabay casri ah iyo xeel dheerayaal caafimaadi ka howlgalaan anigana aanu igu tiirsanayn wixii hadda ka dambeeya qodobka labaad howlaha siyaasadda marka dib loo jaleeco taariikh nololeedkayga siyaasadeed oo xambaarsan waayo aragnimo qoto dheer waxaan go'aansaday inaan iyadana ka fariisto sababaha soo socda kow tamarta jirka iyo maskaxeed ee qofku waxay la jaanqaadaa da'diisa haddii aad dareensan tahay in dowladaha hana qaaday ay dhacdo in hogaamiye da'diisu weyn tahay oo xilka qabto waxaad ogaataa inay yihiin dowlado leh nidaam iyo hay'ado cagahooda ku taagan oo u dhisan inay bari taaraan hogaamiya laakiin annaga dowladnimadeenu waa curdan sida awgeedna waa inuu hogaamiyuhu noqdaa shakhsi firfircoon oo xoog leh maadaama uu isagu yahay mishinka ay ku xiran tahay socodsiinta howlaha oo dhan sida awgeed wuxuu hankaygu ii sheegayaa maadaama ay da'daydu 70-yadii cagcagaynayso in aan ka gaabin karo buuxinta baahida xad-dhaafka ah ee dal curdana sababta labaad ee siyaasadda uga fariisanayna waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkeen sanadkii 1998 oo aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal Allah naxariistee goor aroor hore ah oo dadku aanay weli aad guryaha uga soo bixin sida aan filayana maalin jimco ahayd waxaa aqalka iigu yimid taliyihii biliiska ee xilligaa Allah u naxariistee cilmi kaba oo ii sheegay arrin muhiim ah inay jirto isaga oon wax badan ii faahfaahinna ayaanu igu hagay dooxa duleedka magaalada Hargeysa ee Malkadurdur waxaan dul istaagay muuqaal aad u xanuun iyo murugo badan fal ka baxsan islaamnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo burinaya xeer kaste oo wax isku ahaansha dhigay waa qalfoofka rag badan oo isugu xiran toban oo xabaal wadareed loo jeexay waxaana soo saaray roobo mihigaana oo ka daayay Hargeysa xilligaas waxaan jawaab u waayay su'aalaha ka dhalanayay liidashada dambiga sababta looga dhigay gumaadkaas
waxaanse naftayda ku qanciyey rajo ah in la dhisayo qaran dhaama kii dume aniga oo soo dheeganaya waayo aragnimada aan ka helay halgankii tartanka ururada siyaasadda oo aan dhaqangelintoodii hore xabsi iyo halgan adag u soo huray waxaan ku qancay inuu yahay dariiq iyo nidaam doorasho oo tolaya shaarka ligitalisnimo laguna xalaashanayo kursi booli ah oo ugu dambeyntii ku fariisanayo nin hore u sii dooranaa sababtaas ayaan 2012 markii natiijadii ururada lagu dhawaaqay aniga oo go'aanaya sida wax u dhaceen waxaan xaqiiqsaday in la helo doorasho xor oo xalaali ay ku biirtay intii sida arxan darrada ah loogu dogay marka durdura waxaan goobjoog ka noqday hay-adihiis dheelitiri lahaa ee qaranka oo dhammaantood dubbe ay gacanta ku hayso hadba cidda talada haysa waxaan xaqiiqsaday in nidaamkani aanu wax badan ka gadisanayn kii ridistiisa aan ayada u soo galay oo inaad doorasho raadsataa ay marar abuuri karto in nafa ay go'aan taasoo aanan anigu diyaar u ahayn maalintaas dhawaaqaas kadib ilaa maantay oo 9 sano laga joogo mar kaliya kama qaybgelin hawlo siyaasadeed xisbi iyo ururtoona wixii hadda ka dambeeyana kuma tala joogo sababta saddexaad oo siyaasadda uga fariistay nidaamka dimuqraadiyadda aan dooranay dad inaga taariikh ilbaxnimo iyo dhaqan duwanaa ayaa nidaamkan dimuqraadiga ah u curiyay inuu xal ugu noqdo maareynta iyo xasiloonida noloshooda waxa aanay u samaysteen tiirar dheeliga ka ilaaliya iyo hay'ad damaanad qaadiya habsami u socodkeeda innaka ummadeennu waa reeguuraa danyara qabiilku lafdhabar u yahay jiritaankooda dadka inta ugu liidatana gabood ka dhigtaan waxaan nahay dad muslina oo guud ahaan aaminsan xukunka samaawiga ah gumaystaha hortiis dadkaygu ma lahayn taariikh maamul iyo nidaam ay wadaagaan fac weyn kaasoo damaanad qaadaya cadaaladda iyo wax wada lahaanshaha iyo danta guud haddaba si nidaam tala wadaag ah oo uga hirgalo geygeenna waa inuu noqdo mid qadarinaya qaab dhismeedka bulsho iyo dhaqan dhaqaale dadkeena waxaan hubaalaa inay dimuqraadiyaddu mari doonto jidkii uu maray hanti wadaagii kacaanka ee hore u soo fashilmay sida awgeed anigu kuma qanacsani durbaanada beenta ah iyo alalaaska ololayaasha aan dhaafsanayn sacabka iyo xiisaha maalintaas siyaasaddiina maantay ayaa iigu dambaysa inaan howlgalkeeda iyo ururadeeda iyo xisbiyadeeda iyo tartankeeda iyo waxeeda dhan waa jooji shakhsiyaddeeda gaarkaa baan u jeesanayaa hantidayda si aan uga xoroobo mashquulka maadiga ah waqti fiicanna aan ugu helo cibaadadeyda waxaan go'aansaday in wixii hadda ka dambeeya wixii aan dhaqay iyo maamulkeeda aan ku wareejiyo ubadkayga abaalka UK alle ayaa keligii mahad oo dhan iska leh waxaanse aanan ilaawi karin inaan xuso shacbiga Ingiriiska iyo xukuumadooda oo waqtigii noloshayda iigu adkaa anigiyo ubadkayga noo fidiyey gargaar gobonnimo iyo bini'aadnimo maanta oo aan da'dii howlgabka gaarina ay sii wadista geediga noloshayda igala wareegayaan ubadkaygii ay iyaku waa UK fursad u siiyeen inay noqdaan aqoon-yahano buuxin kara kaalinta igu bannaanaatay qabyo qoraal buug si aanay u lumin
waayo aragnimada aan ka bartay sooyaalka midabada badnaa waxaan ugu bishaaraynayaa dadweynaheena inuu gabagaba marayo qabyo qoraal buug aan ku aruuriyo xogtaas kaasoo aan eegayn keliya aminta iyo taariikhda dhacdooyinka aan tiro lagu soo koobi karin ee aan goobjoog u ahaa balse xambaarsan casharo iyo gorfayntooda waxaan ku faraxsanahay inaan nasiib u helay qoraa iyo saxafi hibadiisa ka sokow noqday shakhsi sida dareenkaygu yahay iga gacan siin kara inaan sida ugu quman ugu turjumo dhacdooyinkaas gabagabadii dunida maanta aafooyin badan baa ku gedaaman qaar aadama sameeyey iyo kuwo dabiici ahaba dhammaantood waa imtixaan nala marinayo waxaan madaxdeeda iyo ummadayada kula dardaarmayaa inay midnimadooda ilaashadaan ilaahoodana u noqdaan